waxaan joognaa jaamacadda Camiid ee gobolka Awdal magaalada Boorama. jaamacaddan cid walba way taqaanaa, cidaanan arag way maqashay. aniga waxaan ka mid ahay dadkii maqlay laakiin aan arag. maanta waxaan ahay dadkii arkay oona maqlay. waxaan hadda nimid albaabka weyn ee jaamacadda Camiid. waxaan joognaa jaamacadda Camiid ee gobolka Awdal magaalada Boorama. jaamacaddan cid walba way taqaanaa, cidaanan arag way maqashay. aniga waxaan ka mid ahay dadkii maqlay laakiin aan arag. maanta waxaan ahay dadkii arkay oona maqlay. maanta waxaan rabnaa inaan wax badan idinka siino xogaa yaroo fikir intaad ogtihiin inaan wax kale idinkugu darno. meeshaan intaysan jaamacad noqon waxay ahayd iskuul dugsi sare ah. waxaa la aasaasay xilliyadii gumaysiga 1952. dad badan aa ka soo qalin jebiyey iskuul ahaan uga soo baxay. maantana waddanka caanka ah dad badan ay yaqaanaan. muddo kadib xilligii burburkii wixii ka dambeeyey sanadda markay ahayd 1998 waxaa loo bedelay jaamacad. waxay markaas jaamacaddaas kusoo biirtay ardaydii ugu horreeyay kusoo biiray waxay ahaayeen 66 arday. filliyada markaas jaamacadda laga heli karayna waxay ahayd 2 filli keliya oo ah filliga educationka loo yaqaano maadooyinka sida chemistryga, physicska, biologyga, xisaabta, Soomaaliga iyo filliga kale loo yaqaano business administration. labadaas filli ay bixin jirtay sanadii ay bilaabaysay 98. waxa kaliya oo markaas jaamacadda lagu furay 3 maalin iyo 66 arday. waa qiyaas kartaa marka 3 maalin iyo 66 arday. maanta jaamacaddan dhul balaaran oo weyn ay ku fadhisaa. waxay magaalada u jirtaa 4 kiiloomitir dhinaca bari, 4 kiiloomitir iyo bar dhinaca bari magaalada Boorama. markaad ka soo aadid xaggeedaad soo aaday. runtii jaamacaddan maanta waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu caansan geega Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo dhan. marka wax badan ka barano maxay hadda waxaan taaganahay qaybo xafiisyada ofisyo badan oo dhinaca laga helo. marka waxaan rabnaa office walba inaan tagno, magaca kor ugu qoran aan akhrino si aan u ogaano xafiiskaas wuxuu qabto. sida hadda xafiiska aan kale maxaa ku qoran Camiid University Office of Human Resource and Management. waa qayb ka mid ah waxa waaye filliyada ay bixiso dhiinka u fadhiisto. dhiinka waxa waaye ninka madaxda u ah maxaa la yidhahdaa filligaas la bixinayo. qofka madaxda u ah xafiisku fadhiisan waayo waaye. marka hore noo soo wada. sidoo kale halkan waxaa ku qoran iyadana Office of Aluminium Affairs. waa farsamada gacanta sidaan u fahmay. waa xafiiska maxaa la yidhahdaa hoosta farsamada gacanta. Vehicle for Peace and Development. badanaan gaadiidka iyo sida horumarka sida loo kobciyo maxaa la yidhahdaa wax soo saarka qofka xagga farsamada. qaybtan kale ayada waxaa waaye Office of ICT Service. macnaha waa dhinaca kombiyuutarada. taasaan filaa soo dhinaca kombiyuutarada waa ICT Service la yidhahdaa. way qaabilsan tahay maxaa la yidhahdaa arrimaha kombiyuutarada. qaybtan ugu muhiimsan qaybtan iyada waxaa loo yaqaanaa meeting hall. waa meesha lagu wada kulmo ardayda qalinjibinta markay qalinjibinayaan oo kale. meelaha ay maxaa la yidhahdaa ardayda iskugu yimaadaan iyo macallimiinta waalidiinta markii la shaqayo kale. sidoo kale iyadana waa la yimaadaa. hadda waxaan ku jirnaa hallka meetingka ama macallimiintii ardayda ugu gumaan iyo maxaa la yidhahdaa mas-uuliyiinta jaamacadda oo kale. marka meetingka meelaha lagu anigoo magacayga uu yahay Axmed Maxamed Haajir. waxaan maanta fadhiyaa hool ka mid ah hoolasha jaamacadda Camiid ee magaalada Boorama gobolka Awdal. marka haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxyaabaha ugu muhiimsan ee jaamacadda lagu soo kordhin lahaa waxaan dhihi lahaa in la badiyo dhinaca farshaxanka aan idhaahdo iyo farsamada gacanta. dadkani waxay u baahan yihiin farsamada gacanta in aad looga xaqabtiro. maanta waxaad u moodaa waxyaabihii badnaayo aqoontii kale in loo soo rogay maxaa taqaanaa oo ah farsamada gacanta. waxaan jeclaan lahay mustaqbalka marka dambe ay imaan doono
farsamooyin badan oo gacanta inaan ku arki doono jaamacadda way ka mid tahay duuliyanimo way ka mid tahay darwalnimo way ka mid tahay badmaax way ka mid tahay askari way ka mid tahay wax walba markaas muhiim u ah waddanka iyo dadkaba taas waa ra'yigayga anigoo ah axmed maxamed haajir intaas ay dhaleen marka aan rugsii socono aan naqaanaa miiska lagu hadlo sidoo kale waxaa meesha yaalo roobka waka qof nasiib lahaa xirto kuley Amud University nasiib uma la yeelan laakiin dad badan nasiib u yeeshay waa goonka lagu qalin jibiyo oo isticmaalo sidoo kale waa kala qalabkii ayadana koofiyadda hadda waxaan joognaa jaamacad walba markii la leeyahay waa inay wax walba ayada markaas muhiim u tahay inay u dhamaystirnaato waxaa ka mid ah goobtii lagu cibaadaysan lahaa in la helo waxaa ka mid ah goobihii wax lagu baran lahaa in la helo waxaa ka mid ah goobihii wax lagu akhrisan lahaa in la helo hadda waxaan taagannahay goobtii lagu cibaadaysan lahaa dhinacayga bidix waxaa xigto masaajidka ay jaamacadda leedahay halkaan kaalaya halkaan waa ka si fiican aan u arkaynaa halkan sidoo kale waxaa jiro goobihii ayagana galaasyadii oo wax lagu baran jiray ardayda fariisan jireen marka ayagana waxaa la rabaa inaan soo yara indheeno hadday furan yihiin galaasyada qaar way xiran yihiin marka haddii dhacdo inaan helno galaas furan waxaan isku dayaynaa inaan galno haddii kalena waxaa loo yaqaanaa blogyo u kala qaybsan yahay ama qaybo oo markaas loogu talagalaa inay u kala baxsanaadaan marka hadda waxaan joognaa blogga L loo yaqaano 34 waxaan u maleynayaa inuu xiran yahay qaybtan waa qaybta imtixaanaadka lagu kaydiyo marka imtixaanaadka la soo qaado meesha la iskugu keeno waaye waxaa loo yaqaanaa examination office qofka markuu muddo wax soo barto ambaar uu soo barto loo baahan yahay inuu nasto kursigaad ku fadhisayne waxaad jeceshahay inaad ka soo baxdid si aad banaanka u soo baxdid banaanka markaad timaadane waxaad u baahnaanay kursi kale aad ku fadhiisato meelahan waxaa waaye waxaa loogu talagalay ardayda inay fadhiistaan oo ay waqti ku qaataan marka anagana aan ku fadhiisano meeshaan waqtiga lagu qaataa markaad madaxaada ka shaqaysiisid waxaad u baahan tahay inaad nasato ugu yaraan asxaabtaada aad la fadhiisato niyaddana aad ku dejiso waxaad isweydiin kartiin inaad isweydiisaan kadibna hawshaadii aad hore usii wadato sida anaga hadda hawsheena aan hore ugu sii wadanayno soo bixeen wax walbaba waa gacan ku hayn waa ujeedaa dhirta ka baxaysa jaamacadda dhulka horta badanaa waxaa leedahay dhulka hadda jaamacadda ay ku fadhiso waa dhul xoogaa adag waaye sidaas way tahay geedaha ka baxayo sida loo ilaaliyey waxaa dareemaya inay tahay wax gacan lagu hayo oo mar walba laga war hayo يا ترى
jaamacadda dhanba waxaad u moodaa cabsi cabsi wax ka cabsane wada geedo ayada dhanba wada dhir waa neecaw aad u macaan badan dhinac walbuu kaa soo galaa mararka qaar markaad aragto geedaha waxaa kugu soo dhacaya filimada horarka maaragtay vampire-ka dhulka dhanba waa dhir dhulkan dhanba waa dhir soo tahay jaamacadda dhulka ku fadhiisane waa dhul xoogaa dhinaca adeegu xigaya dhul jilicsan maaha taa waxay ku tusee in gacan lagu hayo waqti badan la geliyey lana ilaaliyey jaamacaddan Amoud University sidoo kale waxay partnership la tahay jaamacado badan oo caalamka oo ku yaala Ingiriiska Yurub inta badan Yurub iyo ku yaalaan iyo jaamacado kale oo Afrika taa waa qaybta IT-da oo qaabilsan maxay lahayd telecommunication-ka jaamacadda marka runtii waa jaamacad laga fakray hanti badan aqoon badan dadaal badan wax badan oo markaas bulshada muhiim u ah la geliyo si uu loo soo saaro bulsho tayo leh waxtar leh mustaqbalkii ummadda wax uun ay ka bedelaan bulshadan hadda noo sidaas way tahay dadaalkii waqtigaas ay bilaabeen ilaa ay hadda way ku jiraan oo waxay rabaan marba marka ka dambayso inuu wax ay sameeyaan ayagoo rajaynayaan sidoo kale inay hoggaanka u qaban doonaan Afrika bariga Afrika iyo khaasatan geeyiga Soomaaliyeed iyo Soomaaliyaba runtii jaamacaddan waa jaamacad aan caadi ahayn dareen marka qaar ku gelinay mugtaa dareen waxay ku leedahay waaw jaamacad sidan oo kale ma ku taalo gobolka deegaanka iyo bulshadeeda oo ah runtii dad ayagana u moodid in lagu tarbiyadeeyay inay maxalada xagga aqoonta wax badan iyo fikir badan ay ka haystaan waxaan hubala jaamacaddan inaan u soo xiisi doono badanne aan xasuusnaan doono inta yarta aan joogay jaamacaddan waqtigan ku qaatay oo xasuus gaar ah igu lahaan doonto mustaqbalkana markay maxalada oo la soo qaado jaamacadda Amoud ugu yaraan aan fikir aniga ii gooniya aan ka haysan doono taasoo muujinayso way aragnimada aan ku qaatay intii muddadii aan joogay jaamacadda Amoud marka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada jaamacadda Amoud ku soo dhawaada jaamacadda gobolka Awdal muuqaalkeena waxaan rajaynayaa inuu halkan ku gabagabaysmi doono waan halkan ku maxay leedahay ku dhameyn doono haddii ay jirto wax fikir ah ama ra'yi oo xagga jaamacaddaana waxaan jeclaan lahaa xagga commentiga inaad nooga soo maxay leedahay wadaagtaan fadlan channelka daawanaysiin waa Hajir Bro hanaga ilaawina like-ta share-ta iyo commentiga aad ay noo caawinaysaa waa mahadsantihiin ciao sidoo kale noo subscribe gareeya waa maxay yaaqay dhawaanahan waxaan u moodaa subscribe-keena sidii hore inuusan ahayn waxoogaa dib u dhac uu ku yimid marka fadlan waa dadaalaynaa adigana nala dadaala ku soo dhawaada jaamacadda Amoud maalin wanaagsan ciao